golaha stuudiyaga codka Djibouti maanta waxaa martay mudane Cilaaba Saciid waa xogayaha guud ee ururka Somali Ethiopian Diaspora. Cilaaba wuxuu galay magaalada Ottawa maanta isaga noo martay mudane Cilaaba oo codka Djibouti aad ugu soo dhawo horta. waan dhawahay Maxamed waana mahadsantahay. Sidaad ogtahay bishii Ramadaan ee barakasad baa noo bilaabatay kolka hambaliyo waxaad haysaa adduunka muslimka ku nool siiba walaalaheena wareen reer Djibouti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. horta Maxamed waxaan leeyahay Ramadaan wanaagsan Ramadaan Kariim yaan dhammaan leeyahay dad yaabaha ku nool dunida dacaaladooda siiba dadka reer Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya walaalayaal waxaan leeyahay bisha Ramadaan barakadeeda iyo xasanaadkeega oo inaan si fiican u gudano ilaahayna ha naga aqbalo maad aragtay kuwii maad aragtay mid noqda walaal noqda ilaahay maad aragtay waajibaadka ay gudanayaan bisha Ramadaan ilaahay ka aqbala ilaahay ha naga dhigo. mudane Cilaaba sidaad ogtahay sanadkan gudihiisa 17 June waxaa ka dhacay xusadii caalamka Djibouti ka dhacday magaalada Ottawa. dadku waxay dhahdeen 17 June halkan xusadiisu waxay ahayd tu aad uga duwan kuwii hore adoo joog halka goob jooga ka ha sidoo arkaysa adigu. horta Maxamed ayaanta ilaahay baa joojiyay waana joogay xuskaasi 27 June 2000 ka dhacday magaalada Ottawa. wallahi Maxamedow si sharaf leh u dhacday si wanaagsan oo qurux badan waxaana ka soo qayb galay ilaa 1000 dad ku dhow. dadkaasi waxaan u maleeyay sidaan u arkay dadka kala yimid dibadda magaalada ma aragtay Ottawa siiba Mareykanka iyo leesa gobolada kala ma aragtay Canada kamida. marka Maxamedow waxay ahayd wallahi xus aad u wanaagsan aadna qurux badan ay dadkuna isku arkeen dad yaabo badan oo xitaa ma aragtay ka soo fakaday dhibaatada wadanka lagu haya yaan halkii kula kulanay aanan aragnay oo yakuna ma aragtay aan isweydaarsanay ma aragtay ma sheeko ma aragtay dhibaatada wadanka iyo ma aragtay sidii ay akhbaraad ay uga baahnayeen wadanka Canada siday u soo degi lahaayeen. walaal waxaan ugu maqlaa xusadaas inay dadku badad bay yiraahdaa mucaaradka ka dambeeyay tii dawladda shacabka oo dhan diyaar ma ugu la dhanayeen ma ahayn adigu soo arkaysaa. wallahi dadka reer Djibouti waad arkaysay Maxamed waad bawaad joogtay dadkii meesha ka soo qayb galay waxay ahaayeen dad reer Djibouti horta iyo dad kale oo walaalaheena oo geeska Afrika iyo Ethiopia haday tahay iyo Soomaaliya haday tahayba qofku anu waxaan oranayaa dadka waxa ku sheekeynaya waa aqligii iyo maskaxdii ma aragtay kaliya taliyaha sheekadii suuqa uu ku soo tuurtay. laakiin dadka reer Djibouti maanta waxay garteen in oo calankooga ay maanta ay yiraahiin war niyahow kulli wadan baan ka nimidnay calanna waan leenahay xaqna waan leenahay dad walaalana waan nahay dad meel midaha ka wala yimideen waan nahay waa inaan dhignaa ayaanta weyn aan qaadanay gumannimada aan calankeenana nasiiyay aan xaflad aan u sameynaa sidiina waa la isla gartay aad iyo aadna u dhacday dad sharaf lana way sameeyeen walaalaheennii kamid ahaa Kabraar Ismaaciil Lidiye iyo ma aragtay walaashin Fadxiya iyo dhamaanba hooyooyinka garbaha iyo leesa dadkii dhamaanba halka ma aragtay ka jeediyay hadaladii ma aragtay dhiiringalinta shacabka reer Djibouti sida tooska ula hadlay si walaaltinimada ula hadlay. mawduucyashii waaweyn ee halka lagu soo qaaday maxay ahayd mudane Cilaaba. wallahi Maxamedow waxa kamid ahaa ma aragtay bartiga loo yaqaan MRD raka socda oo ka jeediyay ma aragtay khudbad oo halka ka hadlay iyo ma aragtay kaga hadlay dhibaatada ma aragtay taariikhda wadanka iyo ma aragtay dadkii wadanka u soo halgamay oo lagaga hadlay iyo leesa dad kala oo kala gadiisan oo iyakuna ka hadlay ma aragtay Maxamedow siiba ma aragtay walaaltinimada dadka reer Djibouti ay isku qabaan inay meel kale tagayn inay dad midaha yihiin inay dad walaal yihiin in la xoojiyo xiriirka bulshada reer Djibouti dhamaanba meel kasta joogaan ay dad midaha noqdaan ay ma aragtay calankooga
sharaftooda iyo wadankooga ay heegan u ahaadaan. sidaadkan dadku waxay yidhahdeen halkaas waxaa laga xusay calanka midnimadii waddanka la xusay ee lama xusin shaksi iyo talis iyo dowlad adu taamaad qabtaa mudane calaabe wallaahi maxamed horta si fiican baan u qabaa waxa weeyaan dee shaksi see loo xusi shaksi halkuu ka yimidayna waan naqaanaa siduu u taliyana waan naqaanaa wuxuu u taliyana waan naqaanaa dowladdiisana waan naqaanaa aqligiisana waan garanaynaa cilmigiisana waan garanaynaa maxamedow halkuu ku socdana waan garanaynaa laakiinse calanka iyo waddanku uu joogi weligiina uu joogi annaku haddaan dhimanno kuwa kale ee dhalanaya unbuu sugi dee markaa maxamed maxaa shaksi loo maad aragtay loo xusi calanku xaq buu nagu leeyahay dhulkuna xaq buu nagu leeyahay taasi waxa weeyaan waa wax jirta waana wax la ogyahay waana wax la yaqaana maxamedow ilaahayna maad aragtay taabuu nagu garab galay marxaba mudan camal waxaan u wareegaynaa siyaasadda waddanka Djibouti waxaad bal tafaasiil naga siisaa xaaladda waddanka Djibouti halkay ku sugan tahay maanta wallaahi maxamedow waddanka maanta xaaladiisa deed ayaantii 27 Juun halkan Ottawa lagu qabtay ay dadka reer Djibouti dad aad u fara badan baa ka soo qayb galay dad xakunkii ka soo baxsaday oo mas'uuliin sarsarana oo way ka soo qayb galeen deed maxamedow maanta xaaladda waddanka aad iyo aad bay u xun tahay way cakiran tahay waxaa ka mid ah shalay oo u dambaysa waa ka tujuuro dam laga siiyey maad aragtay dadkii shacabka iyo masaakiintii xitaa dhalintii la ururiyey laakiinse dee dadkii reer tujuuro sharaf bay yeesheen oo intay iyakuna is urursadeen bay yay maad aragtay dhalintoodii cadaalad darrida lagu ururiyey ay iyakuna ku soo furteen maad aragtay xoog marka waxaan taana tusaysa inuu xakunka keligii taliyaha uu ku joogin lugo waxaa ka mid ah yarkan la dilay ee maad aragtay lagu dilay maad aragtay xabiska 12 xabadood lagu dhiftay taaba ka mid ah waxa weeyaan waa gabagabadii maxamedow waxa weeyaan waa gabagabadii hadda wax u haray ma jirto deedo waa tiisiyaad bare magistaala maryam qadaafi oo de maad aragtay dictatorku had iyo goor keligii taliyuhu taa uu yaqaanaa marka u dambaysa waa inuu dadka laayo waa inuu ummadda kala eriyo waa inuu maad aragtay dadka isku diro waa inuu maad aragtay u deed waxyaabo aan dhaqan u lahayn uu la yimaado ay dadku dhaqan u lahayn ummaduna dhaqan u lahayn demokraasiyaduna ay dhaqan u lahayn waa inuu la yimaado tiiba iminka waddanka ka socota taana dee sida looga badbaadayo waxa sida looga badbaadaya dadka reer Djibouti baa garanaya waanan arkaynaa dee kulley waxa weeyaan tala meeshii jirta talada jirtana dee waa in dee laga dhaqdhaqaaqo arrintaasi oo dee maad aragtay waddanka la badbaadiyaa la gaadhaana waddanka haddii kala kulley dhaqankaa xun ee fool xun ee keligii taliyaha unba maad aragtay ayaanba mid yuu maad aragtay rasaas la dhici